lacagtan waxay ku jirtay 3 boorso waxaana laga soo dejiyey diyuurad qaasa oo ay leedahay imaaraadka carabta. saraakiisha dowladda ayaa u sheegay v o eda in safiirka imaaraadka ee soomaaliya maxamed axmed cuthmaan al xamadi uu xilligaasi ku sugnaa garoonka muqdisho si uu lacagtaasi ula wareego. saraakiisha ayaa sheegay in ilaaladii la socotay safiirka ay isku dayeen inay lacagtaasi garoonka kala baxaan, laakiin hay-adaha ammaanka ay fareen in la marsiiyo qalabka baarista markii ay ka dhaga adeegeenna ay cutubka argagixiso la dirirka ee garoonka ay la wareegeen. sharciga caalamiga ah ee diblomaasiyadda gaar ahaan qodobka 29aad ee heshiiskii vienna ee xiriirka diblomaasiyadda ee soo baxay sannadkii 1961 ayaa xasaanad siinaya diblomaasiyiinta, waxaana uu farayaa in la dhowro xorriyaddooda iyo sharaftooda lana ixtiraamo. faadumo isaaq biixi waa gabadhii ugu horreysay ee diblomaasiyadda ku biirta soomaaliya, waxayna muddo 30 sannadood ka badan la soo shaqaynaysay wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya oo ay u qaabilsanayd howlo dibadda ah. faadumo oo aan qadka taleefonka ee magaalada colombos ee dalkan maraykanka aan kula xiriiray ayaan weydiiyey sida loola dhaqmo diblomaasiyiinta marka ay wadamo shisheeye u safrayaan. airport markaan tagno diplomatic passportka nagaan wadanaa markiiba processingka markiiba waa nala marsiin jiray maaragtay immigrationka markiiba qol waxaa nala geyn jiray VIP ah passportka nala ka qaadi jiray entry baa nala ku dhejin jiray baa nala dhihi jiray waa nala soo dhaweyn jiray waa nala sharfi jiray weligana dhibaato lama anaan kulmin weligana. maxaa laidin ogolaa inaad la martaan eeraboorada? ma laidin ogolaa lacag kaash inaad eeraboorada la martaan? lacag kaashaan la mari jiray sanduuq annaga ama waxaan wadanana lama fatashi jirin iyo boorsooyinka annaga midna lama fatashi jirin, wax nala ku xiri jiray oo shuruuda ma lahayn. marka la eego shuruucda caalamiga ah ee diblomaasiyadda waa kuwo siinaya diblomaasiyiinta awood ka sarraysiinaysa shuruucda waddamada ay ku nool yihiin ama ay marayaan. faadumo ayaa ah iiga sheekaysay mar laga shakiyey alaab ay lahayd wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo sidii waddankii ay alaabtaasi ku socotay uu wajahay. waxaan ogahay oo taariikhiyana soo martay waa in la tuhmay qolo soomaalihi inay ku isticmaalaysay diplomatic immunitygooda oo si khaldan ugu isticmaalahayeen oo ay alaab mamnuuca ay soo geliyeen, ay soo direen dhowr goor soo qaadeen. tuhumka keliya ma ahe waa la soo mootiyey laakiin waa la dabagalay ilaa iyagii oo dalkii ay keeneen wixii ku dhex jira la qabtay oo muqaadaraad magaranaysaa narcotic maandooriya. inkastoo shuruucdaasi caalamiga ah ay jirto, haddana qaar badan oo ka mid ah khubarada dhinaca xiriirka caalamiga ah ayaa qaba in arrinta la xiriirta habdhaqanka diblomaasiyiinta iyo waafajinta shuruucda u yaala waddamada ay booqanayaan ama ay ka shaqaynayaan ay ahayd wax mararka qaar muran badan dunida ka dhalinayay. cabdilkafaar cabdi wardheere waa aqoon-yahan soomaaliyeed oo bartay xiriirka caalamiga ah kuna nool gobolka virginia ee duleedka washington. lacagaha iyo waxyaabaha ku saabsan money launderinka ama lacag la gudbinayo oo dal inta ka timaada dal kale tegaysa, waxaa la rabaa in la marsiiyo janalada ama wadooyinka saxda ah. maahe laguma soo qaadi karo lacag inta boorso lagu soo qaado ma oran kartid waxaan leeyahay diplomatic immunity ama wax la yidhaahdo waxaa idaboolaysa inaan ahay diblomaasi inaan ahay. marka taas in la kala garto weeye. diblomasinimadu kuu siin mayso, marna awood kuu siin mayso inaad jebisid sharciga dalkaas aad markaas xiriirka caalamiga ah idinka dhexeeyo. shuruucda caalamiga ah ee dhinaca diblomaasiyadda ayaa difaacaya wax afka qalaad loogu yeero diplomatic pouch oo ah boorso ama xirmo alaabah oo ku socoto safaaradaha shisheeye, waxaana ay ka difaacayaan inaanu furi karin cidaan ahayn safaaradda ay ku socoto ama aanay ku xadgudbi karin. cabdilkafaar cabdi wardheere ayaa qaba in shuruucdan diblomaasiyadeed ee caalamiga ah ay ku dhisan yihiin is-aamin ka dhexeeya waddamada dunida. in la kala garto weeye sheegidda iyo aaminaadda lagu aaminay. haddaad diblomaasi tahay dadka reerku waa guuri karaa, waa lasoo boorsooyinkaaga waa soo raran kartaa, shaqaalahaaga markii lasoo bedelo waa keensan karaan waxyaabo badan oo ay reerkooda u rabaan, dokumentigaaga waxaasoo dhan qarsoodi ay ku yihiin. lama rabo in la tafniido oo aaminaadaasi halkaasay ku jirtaa, laakiin marnaba lagaa yeeli mayo in because ama diblomaasi baa tahay inaad jebisid sharciga dalkaas yeelmayo. nuxurkuna waa intaas, waa aaminaada iyo hubinta la hubinayo kaas diblomaasiga ah inaanu kontrabaan iyo waxyaabo sharci darraa aanu ku shaqaynayn. lacagtuna ka mid bay tahay waxyaabaha ugu ballaaran weeye. inkastoo xiriirka soomaaliya iyo imaaraadka carabta uu ahaa mid aan caga badan ku taagnayn, haddana xadgudub dhinaca diblomaasiyadda ah oo mid ka mid ah labada dal uu ku kaco ayaa keeni kara xiriirka oo sii gala god ka mugdi badan gebiga uu hadda ka lusho. waatan danjire faadumo isaaq biixi mar kale.
soomaaliya haddii lagu qabto oo waxay wadato annagana diblomaasiyiinteenna waa tit for tat. Diplomasigu waa tit for tat maami. Waa aragtaa qora ku taag. haddii dhibaato aad u geysato haddaad jeriso shuruucda u yaala diplomasiga iyo dhaqanka diblomaadka, haddaad dawlad ahaan jeriso adigana kuwaagaa la teginayaa. waa lagaa aargoosanhayaa. oo mar walba waa inaan ka fiirsano tilaabada aan ka qaadayno xiriirka dunida inteeda kale aan la leenahay. maxaa yeelay annagay dib noogu soo noqonaysaa haddii aan qaadano tilaabo qalada. tan iyo burburkii dowladdii dhexe soomaaliya kama jirin dowlad awood u leh inay kontaroosho lacagaha sharci darrada ah ee soomaaliya la geliyo. waxaa marar badan jiray tuhumo la xiriira lacago kaasha oo boorsooyin lagu gelinayay oo aan marin nidaamka saxda ah iyo bangiga dhexe ee soomaaliya. lacagahaasi oo isugu jira kuwo madax furasho ahaan loo siiyey burcadbadeed, kuwo ay dowlado shisheeye soo siiyeen siyaasiyiin xukun doonaha, iyo lacago laga yaabo in lagu maalgelinaya argagixisada. cabdiqafaar cabdi wardheere ayaa sheegaya in shuruucda caalamiga ah ay farayaan waddamada oo dhan inay waajib iska saaraan dhowrista xuquuqda waddamada aan awoodda u lahayn inay kontaroolaan lacagaha sharci darrada ah ama waxyaabaha kale ee kontrabaanka ah ee ku socda waddankaasi. taasaa u sahashay, laakiin taas macnaheedu ma aha hay-adaha caalamiga ah iyo ummadaha ka shaqaynaya oo dalkoodu uu sharciga ku dhisan yahay inay jebiyaan sababtoo shuruucdoodiibaa daciifa inay u jebiyaan ma aha. masalan maraykanka oo kale waxyaabaha muhimka ah dal kale si kastoo shuruucdiisu ay daciif u yihiin lagaa yeeli mayo kan maraykanka inaad jebi oo qof maraykani uu kaash ku qaato boorso oo masalan soomaaliya oo kale kala dego sababtoo sharciyadeedaa xun. marka taasna waxa weeye waa dhinac kale oo qawaaniintu aad diblomaasiyiinta iyo dadka caadiga ahba looga ilaaliyo. safiirka imaaraadka ee muqdisho ayaa u sheegay v o eda in lacagta lagu qabtay garoonka aysan ku socon safaaradda ee ay ahayd mid loogu talagalay mushaarka ciidamo ka tirsan militariga soomaaliya, laakiin saraakiisha dowladda ayaa ku doodaya in lacagtaasi aysan ku socon ciidamada soomaaliya. mushaarka ciidankuna uu ka hooseeyo 1 milyan, lacagtuna ay ku dhowdahay 10 milyuun.